munaasabadani oo ahayd mid lagu maamuusayay 53 guridii ka soo wareegatay aasaaska ciidanka badda Soomaaliyeed isla markaana uu soo qaban qaabiyay taliyaha ciidanka badda Soomaaliyeed Admiral Madi Nuur Ufrow isla markaana ay ka qayb galeen mas'uuliyiin uu ka mid yahay wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda Soomaaliya, taliyihii hore ciidanka badda Soomaaliyeed, taliyihii hore ciidanka xoogga dalka, safiirka dowladda Talyaaniga u fadhiya Soomaaliya iyo marti sharaf kala duwan oo lagu casuumay munaasabadaasi. taliyihii hore ee ciidanka badda Soomaaliyeed Admiral Faarax Qarre waxa uu kula dardaarmay ciidamada badda Soomaaliyeed inay ka shaqeeyaan midnimada Soomaaliya isla markaana ay ka hortagaan maraakiibta sida sharci darrada ugu kalluumaysanaysa xeebaha waddanka Soomaaliya. intaa kadib waxaan leeyahay ciidanka badda dalkiina difaacda baddiina difaacda dawladda maanta jirta waa idin heelan tahay. wasiirkii waa noo yimid, taliyihii waa yimid, taliyaasha hore waa joogaan, waa laydin jecel yahay inaad hor u kacdaan baa la rabaa, dalka inaad difaacdana la rabaa. taliya waa kaa taagan, xataa dhulka ma fadhiisanahay, kulli waa wada taagantihiin, difaacaad u taagantihiin iyo dalkaan in hore loo. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha ciidanka badda Soomaaliyeed Admiral Madi Nuur Ufrow. waxa uu sheegay in ay burbureen qalabkii ay lahaayeen ciidamada badda Soomaaliyeed, wuxuuna kula dardaarmay dowladda Soomaaliya in xilligan ay ka shaqeyso sidii ay u tayeen lahayd ciidamada badda Soomaaliyeed sida uu tilmaamay. aan dabaaldega ciidanka badda ay ka soo wareegtay 53 sano ka wareegaas 53 sano ciidanka badda wuxuu ahaa ciidamada ugu xoog badan ee xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku jireen. waxay difaaci jireen xeebta dhererkeedu yahay 3333 waxay lahaayeen barooyin, waxay lahaayeen saldhigyo, waxay lahaayeen dugsiyo tababar, waxay lahaayeen qalab oo dagaal maraakiib dagaal diyaarad. marka insha Allah waxaas waxay naga raaceen burburkii waddanka ka dhacay, dib mar dambe loo aasaasay. waxaan hadda gacanta ku haynaa doomahan oo hortiina yaala oo ay dowladda Talyaaniga noogu deeqday bishii Agoosto soo dhaafnay. dowladda Talyaaniga noo keentay 4 doonyood iyo doomin kale ayagana dowladda Turkiga noo keentay kuwa badda ku jiraba ah. marka insha Allah bilow fiican baan haysanaa. taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Cabdiweli Jaamac Gurad oo munaasabada hadal ka jeediyay ayaa waxa uu sheegay in xilligan ay wadaan qorshe ku aadan sidii loo tayeyn lahaa noocyada kala duwan ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. waxaan hubnaa haddii Ilaahay raalli ka dhigo inay dowladda Soomaaliya iyo dowladda hadda jirta iyo kuwa kale oo imaan doona inay garan doonaan qaybaha uu leeyahay ciidanka badda iyo xeebaha difaaca dalka Soomaaliyeed. qaybaha uu leeyahay bay garan doonaan, waayo waa la sheegay muxuu ahaa badda uu ilaalinayo intay dhererkeedu yahay, khayraadka ku jirana waa la sheegay. hadda suuragal maahan nin dowladnimo raba inuu difaacan waayo xeebihiisa iyo khayraadkiisa inuu difaacan waayo, suuragal maaha. ugu dambeyntii waxaa munaasabada soo xiray wasiirka gaashaandhigga ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. waxa uu sheegay in xilligan ay wadaan iskaadi wax u qabso loogana baahan yahay sidii loo dhisi lahaa xarumaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. mideeda kale midaan idin sheegayaa taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan ku heshiinay in la dhiso guddi iskaa wax u qabso ah. guddigaasi wuxuu ka koobmi doonaa saraakiisha xoogga dalka Soomaaliyeed oo aqoonta u leh dhinac walba. kaliya waxaan ka wada dhismooyinkii iyo xarumihii ciidamada ay lahaayeen oo ay ka mid tahay xarumihii uu lahaa ciidanka badda in dib u dhis lagu sameeyo. ciidankaas guddigaas wuxuu noqon doonaa guddi iskaa wax u qabso ah. guddiga wuxuu kaalmaysan doonaa Soomaalida inteeda kale oo dhan u kaalmaysan doonaa si xarumihii loo dhiso. munaasabadu markay ay soo dhamaatay ciidamada badda Soomaaliya waxay gudaha badda ay ku soo bandhigeen dowladda taasoo ku aadan sida ay uga hortagi lahaayeen maraakiibta sida sharci darrada ugu kalluumaysanaysa xeebaha waddanka Soomaaliya.